Hay'ado badan oo ay ka mid tahay Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa macaluul ku soo food leh Soomaaliya. Kadib abaaro ba'an oo ay sababeen isbeddelka cimilada taasoo keentay inay angegeen dalagyadii beeraha iyo inay dhintaan xoolaha. Ku dhowaad kala bar dadka Soomaaliyeed ayay saameyn doontaa macaluushu. Malaayiin qof oo intooda badan ah carruur ayaa ku sugan khatar weyn. Maxaan samayn karnaa si aan dadkeena u badbaadino? Tani ma mas'uuliyadda dawladda oo keliya? Dawladdu ma qaadi kartaa culayskan keligeed? Waa maxay waxa ugu yar ee aad samayn karto? Muuqaalkan ayaan ku falanqayn doonaa su'aalahaas iyo kuwa kaleba. Asxaabta ku soo dhowaada Abitay oo ha iloobina inaad subscribe iyo share gareysaan iyo inaad saartaan like. Ku-xigeenka xoghayaha guud ee arrimaha bani'aadamnimada iyo isku duwaha gargaarka degdega ah ee Qaramada Midoobay, Martin Griffiths ayaa ka hadlay Muqdisho kadib markii uu soo kormeeray xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee gobollada waddanka iyo booqasho uu ku tegay isbitaalada lagu daweynayo carruurta ay hayso nafaqo xumada. Griffiths ayaa yidhi, boqolaal kun oo qof ayaa halis ugu jira geeri marka laga eego heerka xanuunka iyo dhibaatada. Waxaan aragnaa Soomaali badan oo ku jira khatar. Macaluul ayaa albaabka ka taagan. Maanta waxaan diraynaa digniintii ugu dambeysay si looga hortago macaluusha. waxyaabo niyad jab leh ayaa hadda kulmay sida yaraanta roobka aan horay loo arag ee 4 xilli roobeed oo xiriir ah, iyadoo 2 sano ee soo socda roobabku ay sidoo kale noqon doonaan kuwo aad u hooseeya ku dar 10 sano oo colaado ah. Barakac baahsan iyo arrimo dhaqaale oo baan ayaa dad badan ku riixaya inay qarka u saaran yihiin macaluul. Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, 737 carruur oo Soomaali ah ayaa sanadkan ku dhintay xarumaha cuntada iyo nafaqaynta intii u dhaxaysay bilihii Janaayo iyo Luulyo oo keliya. Dhibaatadu mar dhow way ka sii dari doontaa, waxaana markhaati ka noqon doona dhimashada 100 kun oo carruur Soomaaliyeed ah haddii aan hadda la bilaabin ficilka. Ugu yaraan 30 kun oo qof ayaa imanayay ama u kala guurayay xeryaha barakacayaasha toddobaad kasta toddobaadyadii la soo dhaafay, taasoo ah koror 135% marka loo eego dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa barakacay sanadkan, kuwaasoo soo lugeeyay ugu yaraan 10 maalmood iyagoo raadinaya cunto iyo biyo. Waxay yimaadaan xeryaha barakacayaasha ayagoo waxba haysan oo ku sugan xaalad aad u liidata. Dadkaas waxaa ku jira carruur nafaqo xumo hayso oo aad u liidata ama dhintay. Dadkan qaarkood ayaa sheegay in ay horay u aaseen qaar ka mid ah carruurtooda u dhintay gaajo intii ay u soo socdeen xeryaha. Xeryahan ayaa ah kuwo aad u ciriiri badan, cuntadana ay ka sii dhammaanayso. 7 milyan iyo bar Soomaali ah ayaa cunto la'aan baan haysaa, kuwaas oo ay ku jiraan 1 milyan iyo bar carruur ah oo ka yar 5 sano. 1 milyan iyo barka waxaa ku jira 400 oo kun oo ay haysato nafaqo xumo baan oo laga yaabo in ay dhintaan ka hor dhammaadka bisha Oktoobar ee sanadkan. Waxaan u baahanahay inaan u gargaarno walaalaheen Soomaali ahaan iyo Muslim ahaanba. La wadaag mawduucan asxaabtaada, qoyskaaga iyo qof kasta oo caawin kara dadkeena. Ugu dambaysta, xusuuso in lagu weydiin doono maalinta qiyaame maxaad samaysay markay gaajo u dhimanayeen. Allaha u gargaaro dadkeena iyo dadka muslimiinta ah. Aamiin.